The horror unfolded on a suburban street in Elizabeth, New Jersey. walaalaha Soomaaliyeed waa islaamay salaam calaykum raxmatullaahi wabarakaatu walaashin aamin laki official walaalayaal gaarigan aad arkaysaan weekend wuxuu jiirsiiyay ama dirdiray gabar Soomaaliyeed sida la yiri waa Soomaaliyeed baa la yiri ma hubo laakiin gabadhaas gabadh yar oo muxuu ahaa 3 jir oo Soomaaliyada waa sida dadku ay sheegayeen balse waa gabar muslimada kulay sawirka waad ka arki doontaa waa gabar muslimada laakiin ma hubina Soomaali taa waxaan hubin inaan sheego ku khaldanahay gabadha markaa wuxuu ninkaasi ku dilay waa nin madow ninka gaariga wada waa Mareykan New Jersey magaalo la yiraahdo weekend bayna dhacday ninkaasi wuxuu gabadha ku dilay wuxuu soo galay wada khaldan wada aan loogu talagelin buu soo galay gaariyada wadada dhanka kale uga yimid gabadhi markaa meeshay ka soo galaysay ayuu gaarigi dabadaba intuu ka xiibo gaarigeedii ku dhuftay iyadoo isla xaafadda markaa dhigo meesha wadada dhigo markuu ku dhuftayna wuu ka dhaqaaqay wuxuu sira cararkii uu sira carar bay gabadhu istiriduub baleedkiisa sawiro si ay markhaati u haysato kadib wuxuu arkay inay duubayso kadibna wuxuu isku dayay inuu dilo iyada dhan uu kharijiyo baabuurkii buu gadaal ugu soo dhaqaajiyay ilaahay marka way ka cararaysaa waday ka galaysaa xaafad bay uga hor ordaysaa kadibna uu ka daba tagi doonaa 3 goor buu gaariga kormariyay gabadha yar miskiinta subhanallah inkastay khatar gashay hadda xoogaa way roontahay baa la yiri laakiin markaasi aad bay u dhaawacantay sida ninkaas uu la dhaqmay balila daawada SUV got in a fender bender with another car. You could see the waka meesha wadada khaldan uu marayo SUV. gabadhana halkaas ka soo baxaysa Suddenly the SUV reverses going right waka iyadii wasiir ku dhufo wata gabadhu but it's not over. way ka carartay laakiin halkaas ay istaagtay Right for her. waka She flees across a lawn, but this time she can't run fast enough. What follows next is too disturbing to show. Prosecutors say the suspect hit her and then deliberately ran her over a second time. si ku talagala uu kormaray dadkii baa u qaylinaya wadada taagnaa Tire tracks on the lawn right here. They continue to this yard over here. waa meesha uu maray wadadii uu maray Where the driver backed up to run over the victim again. The suspect, Waa identified by ninkaas. police as Vincent Jean, has been Ninkaan qaba. charged with attempted murder. waa lagu charge gareeyay alxamdulillah inuu rabay inuu wax dilo ayaa lagu charge gareeyay oo dacwada lagu oogay kadib uu xiran yahay hadeer ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyadana caafimaad siiyo laakiin hal tala in siinay inkastoo qofka bini aadamka markuu naxo qofba si uu dhaqmo gabadhu waxay ku oroday meel cidla ah oo baabuurkii u saamaxayo inuu sii kormaro saas waxa ka wanaagsanaa lahayd in xoogaa xaafadaha dhexdooda lagu ordo laakiin hore waxa loogu maamaahay ana isku maamaahay hore waxa loo yiri abar fadhida lagdin la fudud kullayba qofka meeshuu ku jiro ayaa og sida uu markaas maaragta u dhaqmayo ilaahay baa og dadka qaar ba markay naxaan xitaa froos noqdo oo baraf noqdo aan dhaqaaqi karin qofba siba u dhaqmay laakiin tala ahaan nacan maadaama aan hadda arkayno sida wax u dhaceen hal laga sii fakaro hal isku dayo arrintaas oo kale hadii kugu dhacdo wada banaan ha u ordin ila baabuurku waa ku daba ordaya ma ogtahay khatarteeda leedahay mar hadii meelaha baabuurta kala yaalaan ama xaafadaha gudahooda ay gelileed baabuurku uma saamixi lahayn inuu sii dhibaateeyo laakiin jid cidla ah ama wada u saamaxaysa baabuurkii ayay gabadhu ku oraday taana xoogaa kulli naxdinta u baa u keentay saan leeyahay laakiin badanaa ha la isku dayo bal in laga taxadiro arrintaas oo kale hadday kugu dhacdo xitaa hadduu qof ku bursanayo kale kaba soo qaad qof baa xabad kugu bursanaya qori kugu bursanaya toos looma ordo waayo tooska qofka wuu ku shiishi karaa toos buu kuu shiishi karaa laakiin markaad geesgees u orodo qofku wuu wareerayaa ma uu ku toogan karo waa militariga sameeya arrintaas horaa laygu sheegay askartaa samaysaad askartu hadday yiraahdaan qof ay dagaal lagu jiro toos uma ordaan waxay u ordaan midig iyo bidix qofkii markuu wareeraya qofkii xabadda kuma toosin karo oo toos uma dhufan karo haddase gabadhan saas oo kale waxay samaysay toos baabuurkii bay hor oroday maadaama baabuurkii hor oroday wuxuu helay fursad uu meel cidla ah uu gabadhii ku dili karo laakiin haddii luuqiyada xaafadaha ama guryaha dhexdooda ama guri xitaa hortooda istaagi lahayd
ay ku caraleed waayo guriga dhan wuxuu isdhihi lahaa guriga dhan ma dumin kartid oo waxaasoo dhiba wuu ka baqi lahaa hadday baabuurta kale dhex geli lahayn baabuurta kale ku dhex ordi lahaydna taasna wuu ka baqi lahaa laakiin wuxuu helay jid cidla ah jidkaasoo kale inta badan toos looguma ordo weligaa qof saas looguma ordo laakiin qofba saan sheegay qofba dee sibuu u dhaqmaa markuu naxo ma uu garan karo fikraddu kuguma soo dhacayso badanaa balse ha laga taxadaro I don't even understand why he would even be so upset just because she was taking pictures. Another neighbor's home surveillance camera. ilaahay muxuu soo diray kaamaradaas uu soo dira odaygaas kaamaradiisa ayaa gabadha sawirta haddii kale lama rumaysteen waxay isku dayda inay kacdo kadib uu ku dhuftay buu yidhi victim was critically injured. waka Her parents said in a statement, what this man did to our daughter was gabadha ma aragtaa inay xijaab wadato kolley muslimid way laakiin soomaaliyadna weyne waa laleeyahay laakiin allahu yaclam ilaahay baa og outraged. ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro gabadhaas yartaa ilaahay baan u baryayaa inuu u gargaaro miskiintaas yartaa inuu dilu isku dayay oo 3 jeer kor mariyay oo baabuurka ku soo celceliyay rabbi subxaana wa tacaala ha u gargaaro caafimaad degdegana ha siiyo hadday soomaali tahay hadday wax kale qof kale tahay kolley gabar muslimada weeye waa u duceynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro laakiin taxdiirka aad ha loo taxadiro badanaa haddii arrintan oo kale kugu dhacdo isku day inaad xaafada dhex gasho oodan jidkaas cidladaa u marin jidkaasay u martay meesha geedaha dhexdooda ayuu gabadha baabuurka 3 jeer ku kormariyay maadaama ay fursad u helay xaafadahan iyo baabuurtan oo kale hadii ku dhuumalayd waa laga yaabaa inuu wax badbaadi lahaa laakiin saan hore u sheegay qofba sibuu maaragtay u fakaraa weliba markay naxdin timaado qofka hore uma fakarayo ilaahay subxaana wa tacaala ha badbaadiyo haddii ay muxuu ahaa dhaawaca ka soo noqotona kolley dacwaddu waa u socon doontaa insha allah ninkaasna waa loo xiray waana loo qabtay ilaahay subxaana wa tacaala kaamaradaasna markhaatiba u noqotay asagiina meel fog maba uu gaarin isla markiiba baabuurka soo ku dhex jira oo xaafadda meelaan ka fogeyn taagan baabuurkuna jaban yahay baa la gaaray rabbi subxaana wa tacaala u gargaaray odaygaa waayeelka kaamarada duubayana wuxuu yidhi anigii xaaskayga busto kor saarnay gabadhii dhii ka da'ayo kadibna way noo mahad celisay wallaahi soomaali hadday tahay kolley maasha allah mar walba mahad celinta may ilaawin allah u gargaaro kolley waa gabadhaa yartaa ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad degdegaa siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa walaashiina amana laki ofishiya nabadeen